بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. maanta insha Allah hadduu ilaahay waxaan galaynaa darsigeena labaad cilmaaniyadda. darsiga waxaan kaga soo hadalnay definitionka ama qeexitaanka cilmaaniyadda iyo taybiskeeda intay u qaybsamayso. aan ku sheegnay inay laba qaybood tahay, qayb juz'i ah iyo qayb shaamil ah. cilmaaniya aljuz'iyya iyo cilmaaniya alshaamila. tan juz'i waxa weeye mu'assasaadkii diinta iyo kuwii dowladda oo la kala saaro. دولة دي ودينتي ولا خلاص صار فصل الدين عن الدولة. مدة الشاملة كل ده نحن قصور شغلين تاعي فصل القيم الإنسانية والأخلاقية والدينية عن الحياة. يعني قيم كي بناء آدم كوي أخلاق ده كوي دين ولا صار محي نلاش ولا صار. مكة وأهرين كسور جد الدين وهو أن يبناء آدم يو أخلاق ده أنت بكسور جدول. لا أصلاً قصة على الشغل المنيد. أنا مركز استحمال إني مركز قواميستا أفك إنجليزي أو قرآن. أما قواميس الرجال بيتك. مركز إنجليز هان وأنا أرجو نقول إنجليز هان secularism أيوة نقول أرجو سامر يوصل شغلي. فرانسيس هان ما كرنا نوفر فرانسيس محيوي قانون أرجع المنيد. عرفتوا سه أيضا ما جمتي محاق القرآن ومحيو تقانا. كلمة علمانية marka la fiiriyo qawaamiista Faransiiska waxa uu yaqaanaa lazium waa cilmaaniyada juz'iyada aw Faransiis ahaan waxay noqonaysaa lazium oo lazium waxa weeye waa diintii iyo dawladda oo la kala saaro waa kahanuudkii awoodiisa oo laga fogeeyay maxay dawladda marka waa cilmaaniyada juz'iyada علمانية الشامل كان واحد عن فرانسيسكو laization وحاول يلو مركا وظائفتي مشقوينكي رجع دينتا يكانوتك سيدا تعليمتي قضيه يأرميه بالشدة وحاصلا وانت ايغا لغوريتشي مركاس لولي وخبرة مركاس تدريب بحايستا وحاول الزمنية تدريب الزمنية وحاول وخبرة دي مركاس وحاول وحول براتيكال أيهين أو مركز عندنا عن كشق لهين وعقائد ديني هي وحيلها عن إيمان عن كشق لهين بلودي بيه رجع دين تنعرض حقوقه من الناس محي أعماشة مركز مساجدي حس حاجة حقوقه من الناس مركز طاروا حوي لايزيشن وحوي وعلمانية شامل كايت ونسوس أساسي يقال حدا في رنا قوانيس عربته أرجعن لا يقال قاضي يا إن لا ده علمانية بكسر العين وعين كالهوس ديو مركا waxay leeyihiin waa nisbatun ila al-ilm ayaa laga keenay leeyahay waa nisbatun ila al-ilm baa laga keenay marka waxay leeyihiin almanatul ulum macnaha ulumti ayaa loo kala qaadaya ulum yani waxa kala jiray leeyihiin laba shay diin iyo cilmi ayaa kala jiray leeyahay oo diintu waa gooni cilmuna waa gooni waxaan diinahay ba cilmi noqonaya marka waxay reer galbeedku saasi ula jeedeen kalbeedan cilmaaniyada oo marka waxa laga keenay marka waxay dhaheen waa nisbatun ila ilm marka waa cilmaaniya bikasr al-ayn ya imma bi fath al-ayn in aynka la fathiyo oo dhaho cilmaaniya marka waxay noqonaysaa waa nisbatun ila al-ilm oo laga wado bimaana al-aalam bimaana al-aalam waxa loo jeedaa marka cilmaaniya waxa weeye waa al-aalam way oo adduunkii oo dhan marka soo isgalay waana waxa weey diintii oo laga saaray adduunka oo dhan way marka waa cilmaaniyada shaamilkaay taana waa iska juz'i noqonaysa tii hore oo nisbatu ila al-ilm umma qowl marka moogtay waa cilmaanatu ulum bas marka noqonaysa okay laakiin sida raajix oo saxda ah waxa weey kelmadan inay tahay bimaana al-aalam oo cilmaaniya ayaa saxsan sida rag badan ay rajaxaya saasa rajaxan oo qawmiista marka loo noqdo reer galbeedku ay ku sinay sababtu waxay tahay kelmadan san hore u sheegnay secularism waxay ka timid secularna waxa weeye bimaana al-aalam marka waxa saxsan qolo oranaysa al-almaniya waa saxsan inta hadan kaga gudbino definitionkii inta yartaan ugu harsanayd waxaan rabnaa inaan gudagalno marka ayada
موضوع السي واسع عن وجود قلنا مسألة waxaa jirta macnaha قاعدة waxaa jirta fiqi ah oo tirada الحكم على الشيء فرع عن تصوره يعني الشيء انت هذا الحكم marka shayga waa inaad ka haysataa maxay tilmaan dhamaystiran ama xog dhamaystiran waa ka haysataa marka cilmaanida xukunkeeda intaan aan gelin soo hore u sheegno midii shaamilada ayadu taawar ma lahan taadiimaha oo dhan bay ka soo jeedaa akhlaaqda bini'aadamka ka soo jeedaa humanity ka soo jeedaa taas war ma leh midda juz'iga laakiinse saan hore u sheegnay taas intaan gudaha gelin aan xukunkeeda aan ridin waxaan rabnaa wax badan isla ogaano taas xalqada ma ka dhigan doonaa duulaan xuquuq laakiin marka hore inaan wax badan isla ogaano ayaan rabnaa waxaan rabnaa inaan horta ogaano cilmaanida koor xaalad soo ahayd Oroba maxay haystaa cilmaanida koor iyo asbaabihi markaa keenay in Oroba markaa ay noqoto maxay cilmaaniyad waliba asbaabahaas xataa xalaqada dambe baan intooda badan ku sheegi doonaa tan laakiin Oroba xilliga waxay haysatay ayaan ka hadlaynaa Oroba diime badan baa ka jiray diimahaas dib baan ka sheegi doonaa iyaga diinta kiristaanka baan ka hadlaynaa iyo xilliga qaadatay Oroba markii hore watani bay ahayd waliba waxay haystay madhabka loo ibi qooriga ayay haysatay marka wataniyad bay ahayd wataniyad waxa weeye waa sanam cabud okay marka madhabka nasraaniga ah ama christianity-ga ah waxay qaadatay من القرن الأول للميلاد قرن كواد أو ميلادية أي قاعدة مثل كان مسيحية ده وحنا ويمد لأنك هي شقيقة مريع لحق أي ويم وعونا نبي الله عيسى عليه السلام مريع لحق يكسود ودينتا مركا كواد يهود أي كسودتي كدي نصاص أي صفات مركا يهودي أما نمانكي حوارينتي نبي الله عيسى عليه السلام أي وحي جالسين مركز أنت كلو مركز ودوين أما درس كلاهي عرضا مركب حلقة واحد كتر لي دولة الأورجري الإمبراطورية الرومانية رومان إمباير ودن كما كان يستي ومستعمرات كيدي ودن كون كل اللي بكتري يقوميس إلى برية الحق إلى أدون كون ما كان يستي ودو مركب وين أيها مستعمرات كما كان رومان كأي مركب كفافتي أيضا مركب حوي أي فاقني يعني محي حوارينتي مركز لبيتون حوارينته أي فافي فافتان كده يكون فافيسي مستعمرات كي يميلها يقوم يسنيسي إمبراطورية الرومان waxay alisay inay isku horimaadaan imbaradoriyad ragii markaas umrada meesha ka ahaa oo haystay iyo dadka diinta faafinayay yaani ragii markaas madaxda meesha ka ah oo imbaradoriyadii wax ay ula hareen ma jirto inay ka takhalusaan diintaas masiixiga yani juhdigoodii iyo awoodooda dhan bay isku geeyeen inay diinta meesha ka saaraan laakiin macal asaf shadiid way u soo roweys sircaad adag baa dhex maray oo jiitamay ilaa 3 qarni ay jiidad oo dad badan ay markaa ku dhinteen meelo badan lagu gubay Roma xataa markaa waa lagu gubay okay qarnigii 3aad marka la marayo oo markaa kristaanku faafay shaqa awsna ku faafay markaa waxa xarun u ahaa shaqa awsad Iskandariya markaa ugu weynay oo markaa waxa isla kala oran jiray Babo al-Iskandaros al-awwal dhanka kale waxa weeye Oroba uu faafay ayaa waxa dhacday iska hor imaad aragtiyeed ayaa dhacday oo waxa iska hor yimid nin la oran jiray Eros oo asagu markaa kamid ah ragga asaaqifta kamid ah yani waxa kala jira darajooyin bay kala leedahay kristaanka marka laga hadlayo waxa kala jira darajooyin bay kala jira waxa kala jira martabatul asqafiyya ayaa jirta oo martabada ugu sareysa waxa kale oo jirta martabada la dhaho al-qasawsiyya oo qasiisiinta iyo xasaas oo martabada labada ku xigta weey asqafiyadu ingiriis waxay noqonaysaa bishopska marxalada ku xigtana waxa weeye marxalada la dhaho qasiisiinta oo priestiga rubada ku soo xigtana waxa la dhahaa shumusiyya ayaa la yiraahdaa
ingiriisana decom bay noqonaysaa waa rubdada saddexaad wey rubda kasii hooseysaa jirta oo la dhaho qumsaasama wax saasay dhammaanaya adu darajooyinkaasay kala leedahay marka asqafyadu waa aclaa rutab alkahanutiya fi diin almasiixiya waa rutbada ugu sareysa diinta masiixiga awow iyada lafteeda waxaa loo sii kala qaadaa markaas saddex loo sii kala qaadaa oo asqafka oo bishopka ah iyo mudraaq waxay dhahaan oo ah archbishop bale mudraaq archbishop iyo waxaa loo yaqaano patriarch ama boobka oo ugu sarreeya iyada lafteeda saddexdaa qaybood sii kala noqonaysa marka asqafkii markaa haystay iskandariya oo la oran jiray aliskandros alawal iyo waxa isqabtay nin la oran jiray eros oo asna asqaf kala ah eros iyo iskandaros masalada isku qabsadeen waxa weeye masala ku tacalluqda nabiga ciise calayhi salaam nabiga ciise diintu markii hore way saxsanayd oo diinta masiixiga markay soo galeysay ee sidii ilaahay u soo dejiyay ay ahayd laakiin sidii baa laga khalday oo barnaamijkan tataliiska ama saddexdan ilaah oo allah al-ibn wa ruux al-qudus dib baa laga soo galay ninka ka soo galayna dib baan ka sharxi doonaa oo la oran jiray Paulus ninkaasaa barnaamijka waalay ninkaana dib baan hawsha uga tagi doonaa asaga carrada qasay Paulus marka waa waxaa loo yaqaano al-ahd al-jadid ninka asaasay weeye ahd al-jadid ninka yani kitaabka muqaddaska marka laga hadlayo ahd qadiim iyo ahd jadid baa jira marka ahd jadidka oo hadda Christianity wad ma ku dhaqmaan waa ninka iskala weeye waxaa loo yaqaan rasuul baana loo yaqaan rasuul ay u yaqaanaan ninka asaga waa acdam shakhsiya bacda yuusa nabiga ciise يعني كذب منك شخصيته قوي منك أصلا مركز تثليث كان يعقائد كان خلدان كياني أوكي مركز تثليث كاس مركز حلقة شري ومعناها عقائد كي يعني وحلو رقمي مركز وحلو يقانو العهد الجديد بلو رقمي حلقة اسقبنا يا غلط عندنا واسقفين تا أنا بيشو اسكا اسكندروس إيروس وحي اسكو قبتين مركز نبي الله مسيح طبيعي عزيز ومحوها ما إلهي بوها مسبني آدم بوها يروس أصبح حيري إلهي عيسى لبيك ليه عيسى إلهي إياه سميه يساس أصبح دودي يروس إنك حواه ويرسح سنوات ويصح سنوات يعني إلهي وابقوني عيسى وابقوني عيسى إلهي بسميه وعقد صح أول إنك الله إسكندروسنا وحو آمن سنة عيسى إلهي واسمه طبيعة الإنسان هي طبيعة الله واسين بكري وطبيعة عيسى هي طبيعة إلهي واسكمد واسين وعيسى وإلهي إلهنا وعيسى أنت في مركز شكل بدن بأورتي يبوخ بدن بيروح كده أورتي بالشدي مركز ماذا ككريستيانتي آمن سنة أوكي حالة مركز وقعتي مركز وحلقتي وحلو يقاني أول مجمع مسكوني أول مجمع مسكوني أيها القبط Ecumenical Council بله Ecumenical Council ومؤتمر دولي أقلي أودعتها يعني مؤتمر كعالمي جاء دولته سكوي ما أنا أقلي بأودعتها ومعناها كانوا هو مؤتمر أي كريستيانية هو قبطان يا اجتماع رعاة ومعلمي الكنيسة من جميع الجهات المسكونة يعني كل ما dadka taabacsan iyo macallimiinta kaniisadda iyo asaaqifada min jihaad ya almasquna macnaha masquna waa inta la deganaa adduunka oo dhan dadka jooga kristaanitiga ah oo culmadooda ayaa kulmaysa لمناقشة أمر يخص الإيمان المسيحي بهدف حفظ النظام وسلامة العقيدة المسيحية أنا صوت الله قرن وحوي وأهرن سود رسيب بالنقاشية مرك أهرن وين وعقيدة حوالي ساعتين الموضوع مرك أسقى حلقتها مجمع المسؤول وحدها سي مرك الله إلى عليه نظامك عقيدتنا لو بدباديو أي أصل الله قرنية أوكي مرك وحا اسكو إيمانية الأمان أساق قدر أما اسكو إيمانية سي وحاول مشاكل مشكلة تيمدو إيمانية الله حليه مرك مجمع المسؤول ugu horeeyay oo la qabto waxa la qabtay 325 ayaa la qabtay waxaana marka hogaamiye ka ah oo hogaaminayay oo qabsoomida shirkaas inuu qabsoon sabab u ahaa imperatorka weynaa marka Roomaanka marka meesha haysta loo oran jiray Constantine
قسطنطين مركا أساقفة الأمر سوير وحالا حق سوق الجري حوالي 260 إلى 300 وحن كوضع حوالي 250 إلى 360 ومركز أسقف أما بيشوريسا أياك سوق الجري سأرنتها روح حليو قد حيث نكا إيروزيو الإسكندروس الأول أوكي ولا سكويمي دودي وفرنتي دودي مركا فرنتي قساوسدي iyo ragii bishopska kulligood waxay taageereen Iskandros bay taageereen loo raayo marka la dhageystay dadku dhan waxay taageereen maxay Iskandros bay taageereen waxay Iskandros baa saxsan okay ninka loo rajay Eos Chris meesh ku noqday alla waxa raaca lahaa laba qisiis baa raacay laba qisiis bas baa raacay sadarteed waxa loo aqoonsaday marka Eos aqeedada oo taqiida faasid oo bidca inay tahay kutubtu qoran waxa amar lagu bixiyay in la gubo رئيسكي مركز شركة قبطية قسطنطين هانا وحو إعلاميي إلى الدين الرسمي والصحبة أي تحريك ميدان إسكندروس سوى كلا رئيس وحو إعلاميي دين دولة مسيحي وإنا يبطها مسيحي دين الدولة الرومان وإنا مسيحي يعني ما كان ديما بدن بأمريكا كشري وحوي كشري عرضاس أي دولة الرومان أي قميستو أما أي أتريسو مركا ديمه بقى بوق يسرع كده ما واي marka Chanceskaas mid kale Constantine wuxuu kaga faa'iideystay inuu ku iclaamiyo in diinta Kiristaanku ay tahay maxay diinta kaliya diinta rasmiga ee dawladda Masiixiga ah si markaas waxa uu wuxuu u dhalato oo diimahan kale looga takhaluso okay arinta markuu sameeyay oo diinta rasmiga ah ay noqotay diinta Masiixiga ay noqotay ninka waxa uu lahaa Constantine ninka uu yani boqorkii uu horeeyay oo u heelay nimanka boqorada ka horeeyay oo dhanba ka beel la mari jiray ويلي جرين ويدري جرين مسحب أدب لو بعد الجر. أوكي. مركا دين تعصبين مركا أو مسيحية دي بدل مضمع كسوري. دين مركا عصبين مسيحية والدولة دون مركا جرب كعيسيسي وحيها شافون الشعب قال وترى بدل بها شيء جميع أطراف الإمبراطورية. الإمبراطورية أطراف تدورن بالشعوب بدل أي كاش. أسباب مركا كيني إن الشعوب بدل هالشيء ما أنترين هدول علمه. أسباب بدل أي كاملة. كو waxaa la yiraahdaa diinta Masiixiga iyo aqoonta Yurubta ka jirtay oo xogaa tawaafuq ka dhaxeeyay oo macnaha aqoonooyinkii markaa ka jiray Yurub ka jiray iyo diinta Masiixiga wax badan ayay iska waafaqayeen okay oo maxaa kamid ah iska waafaqayeen waxaa kamid ah طقوسta tahaarada oo kale macnaha tahaarada oo kale yani diinta Masiixiga la tahaara qaato tahaar xasi amreys marka kuwana يعني عقائد كيف حكيت لك قطع هاي الطارة أي أمري سوى كل حسكوا فق صناعين وحقا مثلا كريستيان كنت تصوب حين أنت سدين تاع مسيح وإمام بقى إن معناه وجرو إله وحد له وحنا ولايه وحسوي أمن سناعين سوى كل حقا أمن سناعين حمل البكرة حمل العذراء يعني ورئيس يقبل عذراء هذه البكرة هاي وحياها أمن سناعين بكمل كيد مدينة مسيح جويت له تودرنا يساوي مريم عليه السلام اوكي حاليا امسنه waxa kamida in xisaab jirto mana xisaabta ay jirto in shaadeen ay jiraan in qadiisin dad la qadisay ay jiraan in malaa'ig ay jirto wax soo rumaysnaa marka waxa is waafaqay waxyaalaha ay markaas Masiixiyadu diimihii marka ay afkaari ka jira Masiixiyada ay rumaysnaayeen yani iyo diinta Masiixiga is waafaqay yani kulli ma halka qayb kamid waxyaalaha badan ay ku faafsan waa jiray taas waxay kamid tahay laha asbaabaha keenay markaas Masiixiyo inay noqoto mid la aqbalo oo wadan ku faafto qodobka waxa weeye Masiixiyada ay dadku waxay u ballan qaadaysay inay jirto nolol aad u wanaagsan oo nimco iyo barwaaqo ah oo la dhaho nolosha aakhiro marka taana waxay keentay dadkii masaakiinta oo dhanba inay markaa ay raacaan oo dhibaataysanaa oo dhan dadkii dhibaataysanaa oo dhanba inay raacaan way u arkaan wadada kaliya oo ay kaga fakan karaan caalamkan aysan jeclayn caalamkan ay ku nooleysan jeclayn wadada kaliya ka fakan karaan waa inay caalamka kale oo ballanqaadka iyo wanaagga iyo jannooyinka waxa iska leh waxa way caalamkaas inay ku biiraan marka waxa lagu leeyahay masaakiintii oo dhan way raaceen midda kale waxa lagu leeyahay waxay ka jawaabaysaa su'aalaha koonka oo marka falsafada su'aalo badan isku diinaya ku warsanayeen ay ka jawaabtay taana waxay keentay marka falsafada xataa inay raacaan okay
dhibkii laftirkeeda lagu hayay masiixiyada yani aslan fakar haddii la caburiyo fakarka waxaa ka imaada feedback oo fakarka inuu faafo oo markaa waxa weye intishaara ka imaanaysa fakar aslan ma caburiyo afkaarta haddaa caburisid way kugu sii bulaadaysaa marka caburinta laftirkeeda faa'iida u keentay waxay keentay inay carabadu faafaan okay asbaabta waxaa kaloo ka mid ah dowladda Roomaanka markaa rabtay hal diin kaliya inay dowladdu ay yeelato oo ninka Qusantiina marka dambe uu yiri diinta kaliya marka rasmiga ah oo aan qaadanay waa diintaas okay asbaabahaas marka ka mid ah okay marka diinta masiixiga ah oo marka la qaatay ma diin sax ay ahayd mise diin khalad su'aashu waa taas su'aashu waa mid ah diinta masiixiga ah oo la qaatay ma diin sax ay ahayd mise diin khalad ay ahayd يعني دين صح ما هي دين خلنا بأي أحد وأي محايري يروح waxaa ka jiray diimo badan iyo afkaaro badan ayaa ka jiray marka afkaarihi iyo diimihii marka ka jiray Yurubta ka jiray iyo diinta masiixiga ayaa isku dhex darsamay milan bay sameeyay way isdhex galeen marka waxa soo baxday diin kala soo baxday oo waxay dhahaan yani diinta masiixiga markay iimaaneysay imbaradoriyada Roomaanka iyo meelaha ka taliso diimo badan baa ka jiray marka waxay noqotay diintii masiixiga waa in la leqo oo diimihii kale ay leqaan marka masiixiyada ay wanaagsaneyd oo saafiga ahayd waxay isku bedeshay masiixiye kale oo waxa weeye afkaar khaldan iyo waxyaalo khaldan aaminsan oo hal mar waa la leqayba aslan waxa lagu leeyahay mujtamac xadaarad leh ka xadaarad badan ka bahalka badan da u tagtid way ku leqayaan salahan waxay dhahaan hada markii ninka loo jeeyo Mongolianka markay ku duuleen oo kale siin markay ku duuleen ayagoo waa la siin baa la qday waa siin way ka saqaafad weeyay ka balka weeyay dadkii dhaqankooda waa bedelmay afkooda waa bedelmay in ay shanays baan noqonay wadamba marka taas oo kale diinta masiixiga markay Yurub tagtay saqaafad ka balaaran iyo diimo boqolaal xaba markay u tagtay ayadoo dhan waa la qday wax kale diin kale masiixiga soo baxay marka waxaan rabnaa inaan wax ka sheegno marka diimihii marka bartaan ka jiray marka diimihii ka jiray imbaradoriyada Roomaanka waxaa ka mid ah diinta Yahuudda ka jirtay diinta Yahuudda Nabi Ciise ayaa ka jirtay oo sida la sheegay macna diinta Nabi Ciise waxay u timid Ilaahay u soo dejiyay inay dhamaystirto diinta Nabi Muuse yani injil waxa loo soo dejiyay waa itmaam wa ikmaal li at-Tawrah marka Tawrada ay sii jirtay taas waa mid waxa kaloo jiray aqeeda la oran jiray al-aqeeda al-mithra'iyya mithraic doctrine English saas aan qonaysa mithraic doctrine aqeeda mithra'iyya waxa weeye waa aqeeda wathani ah waa sanam caabud waxaana udub dhaxaad u ahaa kaahinka iyo gowraca yani kaahin ragan ku hanuudka oo kaahinada ah iyo gowraca in wax la gowraco waxay aaminsanayd inuusan qofku badbaadin inuu naftiisa ku furto qurbaan ma ahayn yani qofku inuu naftiisa qurbaan ku furto ma ahan Ilaahay wuxuu gowraca markuu kusoo badbaadin gowracan wax gowracayana waxa waasda u ah kaahinkan yani kaahinkan la sii marinaya yani waxa ka aqbalay qurbaankaada ninkan kaahinka oo nooc meel qaraabo ninkan ku qaraabanay kaahinkan ka aqbalay haroodi waxa weeye qofku saas marka badbaadi ku helayo waxa kamid ahayd diinta la dhaho diintaas la dhaho aqeedada la dhaho mithra'iyya ama mithraic doctrine diimihii markaas meesha ka jiray ee kamid okay diimihii markaa ka jiray way badnaayeen haddaan wax ka sii taabano waxaa kaloo kamid ahaa wixii la oran jiray al-aflaatoniya al-xadiitha ayaa kamid ahay aflaatoniya al-xadiitha waxaa loo yaqaanaa Platonism modern Platonism ama aflaatoniya al-xadiitha marka waa caqiida falsafi ayay ahayd caqiidadan waxay ku soo ururaysaa fakarkeedu ku soo ururaya in caalamka samayskiisa iyo maamulkiisa ay ka soo fuleen saddex uriye ka soo fuleen maamulka samayskiisa wuxuu ka soo furay saddex uriye ya saddex uriye ay ka soo fuleen two elements ama ثلاث عناصر كو المنشئ الأزلي الأول حاشرين كلهم المنشئ الأزلي الأول أساسه أزلي واكي مو يجريو أو هري أنا حاشرين كلهم أساس عام كان أساسه يجري أو زمن أو قديم أزلي أول يجري
waxa ka cunsurka labaad waxay dhaheen caqliga ka dhashay asaasaha yani asaasaha waxa ka dhashay al-aqlu an-nashi an hada al-mushi wa caqliga ka dhashay asaasahaas asaasaha waxa ka dhashay dhaheen caqliga ka dhashay caqligaas wuxuu ka mid yahay عناصرta koonkan yani asaas samaysankiisa saabku ahayd ayuu ka mid yahay dhaheen qodobka saddexaad waxay dhaheen waxa jira wax la dhaho الروح الكلي روح الجود روح الجود marka waxay dhaheen waa ruuxo dhan ruuxda ay ka yimaadeen ruuxdan marka waxay xiriir la leedahay abuurihi koowad ama mushi awalka ah ay xiriir la leedahay waxayna u sii martabay dhaheen caqliga marka waa falsafo ku soo arooraysa tataliiskaas nooc min saddex ilaah amal weey magaalada yani mushi al-awwal al-aql iyo الروح الكلي saddexdaas adduunka oo dhan ba asal way dhaheen caalamka oo dhan marka waa aqeeda tataliis weey waa aqeeda saddex ilaah amal ah ay aaminsanayeen okay waxa marka xarunteedu ay ahayd aqeedada noocan oo la dhaho al-Aflaatiin xadiisa waxa xarun u ahayd Iskandariya ay xarun u ahayd aqeedada afraad oo ka jirtay meesha waxa ahayd al-Wathaniya al-Masriya Wathaniya al-Masriya masarida ayadana waxa ahayd aqeedada meesha ka jirtay Wathaniya al-Masarida ayadana sidoo kale tatliiskaas ay aaminsanayeen saddexdaas shay oo isku jira oo adduunka maamulaya ay aaminsanayeen waxay jiray oran jiray waxa la dhaho Horus wuxuu ahaa wiilkii Sirayis yani Horus ba ilaah Horusna waxa dhalay bay dhaheen Horus waa ilaah Horusna waxa dhalay Sirayis ba dhalay Sirayisna isla markaas waa Horus waa sheekada tabtii maxaan ku radaa Allah al-ibn wa ruux al-qudus oo kale weey tabtaas ayuu aaminsanayeen سمعت وحورس وإله حورس نواويلكي سيرايس نال تركيس واسل حورس وي إيريس بأيضا نشرتو إلى هذا تاسو أحيد خويدي حورس مركا عقيدة نوعاس تثليس كوريس بأيضا أمن سنين وحلو نشر الوثنية المصرية فعقلوا ترتو حلو إلى هذا الوثنية الرومانية وثنية دي سنة معاود الرومانك waxay ahayd diinta rasmiga oo markaas imbaraatoriyada Roomaanka ay ahayd sanaro soo sheegnay ayadan mabadiida waxa kamid ah tatliiska ayaa kamid ah tabtaas oo kale ay saddexdaas ay aaminsan tatliiskaas ay aaminsanayeen waxa aaminsan waxa la oran jiray Jupiter iyo Mars iyo Cornelius saddexda ilaahay ay aaminsanayeen ayaguna hada Jupiter iyo Mars dawaaran waa bila Soomaan ilaahay ay ahayn la caabudo waxa caabudo jiray imbaraatoriyada Roomaanka ay caabudo jiray Jupiter iyo Mars waxa waa meerayaal sorry waa meerayaal marka meerayaashaas Jupiter iyo Mars waxay ahaayeen laba ilaah oo caawidaan dawladii Roomaanka ama xaloo yaqaan Roomaniya al-Wathaniya Roomaniya ilaah saddexaad wuxuu ahaa Cornelius ayuu waxa kaloo kamid ahaa Wathaniyada Roomaniga aqeedada waxa kamid ahaa in la caabudo imbaraatorka xaakimka oo meesha xukumay oo ilaah laga dhigo arintan waxay ahayd aqeedo Hellenistic ay ahayd ama caado Hellenistic waxa jira يعني waxa loo yaqaano Hellenic iyo Hellenistic laba kale Hellenic iyo Hellenic waa cusurtii ninka la oran jiray Iskandar al-Akbar adduunka oo la wareegay waa xilliga awoodda dawladda la oran jiray Iqriiqa ama Greegu awoodooda ay meesha ugu sareysay ay gaartay culumta dhankaas ay ka gaartay Hellenisticna waa casriga dambe oo ay isdhex galeen waxa loo yaqaano العقلية الإغريقية والروحانية الشرقية ومركز دونك قلة أي سو جارين أي سو جارين وضمنا شرقية أي مادين عصر حلوة قناة هيلينستيك إيج أيالنا أوكي مركز عادة وحكولية مركز عادة هيلينستيك أوي مركز معناها ومركز عادة مركز تشتوي إمبراطور ولا عادة يجري إله ولا قدر يجري واحد صراحة كفي ذكرت كتاب قرره معالم تاريخ الإنسانية ويسكريه وليس نكرره وإنجليزي dadka fidin karta okay waxa kale kamid ah aqeedada ay aaminsanayeen wathaniyada Roomaanku in sawirada la weyneeyo la qadiso iyo asnaamta lana caabudo ayaa kamid ah aqeedada lixaad oo ka jirta waxa ahayd waxa loo yaqaan afkaar waxa ka jirta sidoo kale falsafi ayaa ka jirtay sida fikradda la dhaho ruwaaqiyada ruwaaqiyadu waa madhab zuhdi oo dadka ku boorinaya إن أدونك لا يسعيده وحكم ذا مبادئ السعادة في طلب الفضيلة
السعادة في طلب الفضيلة سعادة waxay ku jirtaa in fadilada iyo wanaagga la raadiyo waxa kale kamida qawaacideeda الفضيلة هي الخير الوحيد يعني فضل in la raadiyo marka waa aqeeda zuhdi iyo adduunka laga zaahido ku tusanayso okay waxa kale oo ka jiray aqeeda yani falsafada la oran jiray al-ibaquriyya ama ibaxiin waa la oran jiray falsafadan theory toos ugu soo jeeda oo theory fadila iyo xaasnay meesha la raadinayay tan waxa weeye ladda iyo يعني راحة الرادين مدان أن اللذة هي وحدها الخير الأصمى لذة يراحض معانكو وخير فكري أسريو وأن الألم وحده الشر الأقصى ألم كي يحنون كنا وشرك ماشي قدام بيسوق يقول سيء مثلا مركب وفكرة إباحي أوي وتصل نسكب عشر سنة حيسان إنك الصوت بدن أرنتها ربنا قرايا إليهم ساس أرنتو معهن وكدولد ومعناها مثل كاس بين بدل الألفة فيه لهن وحيكون ليهم فاللذة عنده مذهب كاس أكتيسة تجمع بين اللذة الحسية والفضيلة الوضع ويكون مريسة معنى اللذة الحسية هي فضيلة الوضع مركو مذهب سكوتر إليهم آخرين الوشق يسأدون الوشق يستوضوا ساس إليهم لكن سيدا مذهب كفر تروحوا مذهب كاس إنه مذهب إباحية وضعت كلية أن يسكبع شعران سكرا حيسان سكت مطان ساس وحوي كنت سنية مركو واحد كتري دينها سكرا بميش كتري أوكي diinta masiixiga ah way timid waxay ku dhaxmeelantay oo ku dhaxbaabaday diinahaas خلاص diinka soo qayb ka qaat marka waxa soo baxday masiixiyad kale cusub baa soo baxday ama waxa loo yaqaan al-ahd al-jadid baa soo baxay ahd al-qadim ku diin saxan baa ahd al-jadid kuna diin khaldan totally wa kahanud iyo wax la isku geeyay beenay huwa iyo khuraafaad iyo balaa isku geeyay taasa marka keentay إن بني آدم كعقل بني آدم كيدين تسكوري ماذا وهو دين خرافات يبين كل سنة يا وحوي ما أنت هدي السؤال ما أنت على جال شو الكلام واحد سكوا عليه ومنطقي عالم كل سنة وخرافات كل سنة دين تصح واحد اسم أوروبا بدشين ودين تان اسمكم ملتين ما أنت عقل يسكم هرم دين اسكم هرم هذا الملاذ أنا ما أنت ما يمعتين الدين تبى بدري برك الدين تبى بدري كدمنا وحقراتي خرافات كي تذكر أنا صون كرما خرافات كي إن تسكو إنكران هذا ودينا مركا أيضا أي وحوي أيضا لا تعلم مريض أوكي هذه عقائد كي أربعة مركز كتير وحي أربعة كتير مركز الدين تام حكى صوب ضيعة لو يقنع العهد الجديد ولحتر كتالم والدين لحتر أيضا كتالم كو حيث إلا الرمية توراة هي يهود توراة قيبها خاطئ إلا الرمية في ديضة قربان كإيو واسطة إلهي يدتك والحيس يعني فكرة في جزء قربان كاهد ويقاتل ما نروح وقف كان مبد بهذه إلى قربان لي ما نروح بحياة معه مبد بهذه وحاحير ويسيف وقاتي وحمايش كذا شيء إلا له وحلو يقان السقوق الغفران إن كان أصلعه قيس كأما أسقف كأماشي جوشكاي إنه تنبيه وعد أحفظ تطمر وين روح بحياة سيدنا لو ورا فين العب بحياة يا واللي حتى العقد حتى هو الوقع ليه هو الغير ليه ما قلت أنا قف كان أصلا إلهي وحول حياة محي يضطر وحول حياة ما كان خلص كذا أو أنا دو حوي وحوي إنك أساسا دمي على عرف وأنا قربان لا تماذا أوكي سو كلا تيرك صدحات وعقيدة الدين تحس يكون تاني مسيحي ومركز وحوي الرعاة جديد كله وحلو يقان الحلول حلول وحوي إلهي يقف يصلح عليه بني آدم إلهي يصلح عليه وحكوا له إلهي ومسيح وي مسيحنا وإنسان هذا إلهي وي ويسكول يحجر الله سمعت وحاصل وحي كسو قالتي ديمها صورة ميش كجري وانا صور شيء هدايته تتليس كان يعني مثلا ايه إن حورس إيو سيراس يسكول يحجران وحاسي كسو قالت أوكي إن لقد صور هذا إيا ساميضا يعني وقرأت إن بالله مسيح وحو سميان هذا صور بينات سميان بينهم وكا صور كاس ومسيح وي هل عابدو وكا marka asnaamta iyo sawirada in la qadiso waa tiirka afraad waa tiirka shanaad baan ku taagantay tiirka lixaad ay ku taagantay waxay tahay waa in nolosha laga zaahido oo bas ee aakhira bas filmku ku ekaado adduun wax naga galay mare adduunkan waa mixnad weeye saal adriga nabiga aadam markuu khaldamay khadiicada baan loo ka jaraya marka adduun bay filinkaas been lagu fikirin aakhirana loo shaqeysto dadku marka waxaas way dhibsadeen wax socon kara ma dadka in la dhahaa waxba cunin waxa shaqaysanina
وحصوني ما تاسا marka keentay in infijaar kan weyn uu dhaco oo marka waxa weey cilmaanadu ay timaado marka masiixiyadu waxay noqotay isku qasan diime ay noqotay marka masiixiya waxa soo baxay marka laba qaybood masiixiya loo yaqaano masiixiyada asalka ah al-masiixiya al-asliya oo masiixiyad yuusa oo masiixiya laga tagay oo la bedelay taxriif lagu sameeyo iyo masiixiyadan kale oo cusub oo la dhaho المسيحية الرسمية ودولة قاطعة دولة نكرة أوريجينال قسطنطين مسيحية كل واحد يقول أما حلوة قانون مسيحية بولس مركب وكاس أنا كان شيء هدايته وأنا كان فيلم كورد برنامج كان هو عليه وحقصي وأنا كان بولس مركب شيء نمر نكان أصلا بولس أرجع لاتينها وحنقول يا لاتيني مركب لافيريو وحنقول يا محي بولس أيون قليل marka roman ahaan loo fiiriyana Paulus bunqonay Paulus roman ahaan Paulus bunqonay Hebrew ahaan marka loo fiiriyana waxa la dhahaa Shaul at-Tartusi Ingiriis ahaan waxaan ku qoraysaa marka Ingiriis ahaan ku sheegno waxaan noqonaysaa Saul Tarsus ama Shaul at-Tartusi marka waa ninka noocaas Saint Paul بالإنجليزي Saint Paul القديس بولس هذا لغته قابك معناه سأريس يعني سير لغة واحد وكل دوين رومانكا لاتينكا إنجليز وكله باول سانت باول بينهم قديس باول رومانكا وكله واحدهم بولس بينهم لاتينكا بولس بولوس بنقول رومانكا هذا الصوت وانا كعسكر بولس كهو أوكي marka waxa hadalay shakhsiyad aad cabqari u ah oo waliba ta'amuri ah shakhsiyad ta'amuriya waa shakhsiyad laga badan buu ah وقد اشتهر أول حياته بإضحاط المسيحيين مركي سهرة حكو عام حي المسيحيين ثلاثة دغالهم كودي ساسوها ثم تحول فجأة ليصبح الشخصية المسيحية الأولى والقطب الكنسي الأعظم كدب هالمر وحو نقضيبا الشخصية المسيحية أو كواد قطبية كنسية أوين نينك اللباد أو كحية نبي الله عيسى وهالمر إركسو قال أوكي معناه هو الشخصية المسيح كسوحتوي منذ ظهوره إلى الآن إلى قصة مقضى إلى حد من بوسكا نيكا قاري مجلو وانا نيكا اسكاله كتاب الله العهد الجديد ودي خرافات تحريفها يا أحد وحوي مسيحية البدرية مركو حكوليه هاي مؤرخ وين ويلس لها وحوليه فلم يحظى أحد في تاريخ الكنيسة بمثل ما حظي به من التقديس والإجلال قف يعني هلي تقديرك يتقديسك يوين انت عنك وهلي عيدها شي مجرتو كليه تاريخ الكنيسة مركو راشا كليه ولي قيد يعني كاس هو وشخصية كواد المقدس كأبو نقط إلا رك بدن مفكرين تأحرارته وكسر شيء ويجرن ونك أصله نختي ووحي هالشيء وحكم ذا كاتب كوين وإنجليز قالوا له بنتان له كتاب مؤلفي وبحيي يوسع لا بولس ما أنا أقول إيه يوسع بولس لبيتي مود بكلا هيستان معنا يوسعنا دينتي سوى صح دين صح سنين بهاي دينتا بولس ما دين خلدانوي أو مسيحية لا تحريفيه وحكوا كم ذا مفكر كوين الله جوستف لوبون وسنا فرانسيسكا كتاب وسنا إسكريل له حقائق حياة الحقائق على كتاب له حياة الحقائق وسنا كذا هذا إني كان أسرع دين تولي من دين خلدانيته وحكوا كم ذا حاجة كهلا إني كلا له ويلز باكم ذا أصل كتاب كيس عن شيء إنه الله معالم تاريخ الإنسانية يوك شيء ولا بني كان بولس قال روح على الوتر يا رجل معتدلين تا رجع كالكب بود بيقول طبعا يعني لكن كان معتدل عادي أيوم كاس حوي وحضية أو كتاب كيس الله معالم تاريخ الإنسانية وحاجة فصل جوني وكنتي وبحي مبادئ أضيفت إلى تعاليم يوصى مبادئ له إضافية تعاليمتي يوصى له إضافية
مبادئ أضيفت إلى تعاليم يوسف. marka hadalka asoo sii wata ninka la Willis wuxuu yiri waraajicu anna Boolos yahuudi al-mawlid ninka wuxuu ahaa dhalashiisu waxay ahayd ku leeyahay yahuudi ay ahayd Booloskaas diinta masixida waalay wa anna ba'd wuxuu yiri walaw anna ba'd kutab al-yahud wuxuu ku leeyahay wa anna ba'd kutab al-yahud yunkuruna dhalik laakiin se qorayaasha yahuuda qayb ka mid ah in kana arintaas oo in karaya اوكي ينكرون ذلك ولا مراء في انه تعلم على اساتذه من اليهود شكومته ليه انه وحكبرتي اساتذه معلمين اليهود بيد انه كان متجرا في لاهوت الاسكندريه وهو هانين كغنعسو كتجاريس لاهوتك اسكندريه انا هو دينتي دي الهي وحا كتعلق تتليس كتعلق او اسكندريه markaas ka shaqeynaysa buu waxa way ku tijaaraysan jir alhilaniya marka laahootka iskandariya marka ka jiray wax kala ma hayo aflaatonida xadiiska haydo aflaatonida xadiisa oo dadka marka hore barij okay sidoo kale وهو متاثر بطرائق التعبير الهلينستيه يعني dadka helenistiga qaabkay wax u cabiraan طريقه تعبير الهلينستيه wadini marka meesh ka jiray oo ku taathuray sidoo kale ku taathuray ruwaaqiyintii aan sheegaynina oo ku taathuray oo zuuday wax saas ayana waxa weeye zaahidin adduunka laga zaahiday dadka bafariy كان صاحب نظرية دينية وهو هانين نظرية دينية إسكالي ومعلما يعلم الناس قبل أن يسمع بيوسع وهو معلم ذاتك وحبرا انتو سنيوسع مثلا قبل أن يسمع يوسع الناس يوسع ونبع عيسى انتو صلى خلقار وذاتك نكا واحد بريج ودينها سفافين جرى واحد اسكول احجره واسكول احجره هيلينستيكي رواقينتي وحوضي اللاهوتي اسكندرية واحد عبرا واسكول جيسي وذاتك بريج اوكي ولما بالزمن طويل حل بدن بو حفافني سوى كلام كليه ومن راجح جدا انه تاثر بالمثرائيه عقيده المثرائيه انا وكتاثر هو كليه اذ هو يستعمل عبارات عجيبه شبيهه بالعبارات التي تستخدمها المثرائيه معناها عبارات بدن مبادئ بدن استعمال المثرائيه واستعمال محاكمه وحاكمه ان قربان لو غدبيو سوقفك كفاره ان سي قفك دنبي لو وداف قربان لو غدبيو marka wuxuu kuleeyahay nabilahay wuxuu amaanaya ciise wuxuu kuleeyahay asagu diin wanaagsan uu soo gudbiyay oo bani'aadamka uu soo gudbiyay laakiin ninka la yiraahdo Boolos dadka wuxuu baray diyaanat al-kaahin wal madbah wa safk ad-dimaa talaban listirdaa al-ilah diin ku saabsan ayadoo dhanba bayskeedu uu yahayba kaahinnimo iyo curaafaysi iyo qurun iyo sixir iyo waxa uu khuraafaad iyo dhiig la daadiyo iyo gowrac ayada waxa way ilaahay la raali galiyo diinta noocaas asoo dadka bari ninku markuu waa noocaas way Boolos waana shakhsiyada qoray kitaabkan la dhaho al-ahd al-jadid qoray oo diinta dhammaatay markii soo wax isku jacbara oo intaas oo boqol diinwada buu aaminsan jiray laahootka iskandariya buu ku sheegaya marka uu ka ganacsan jiray waa falsafadan aflaatonida la dhaho xadiidka oo tatliiska aaminsan waxa loo yaqaano إنه ترى حلو يقانو المنشئ الأزلي الأول إيوه عقلية هي الروح الكلي ما كفلسفة ده توصل أصول نقلية تثليث هذا أركيسين أو الله هي الابن والروح القدس وفلسفة دي أو حرا يرى الشكل يحاول كبدلوي فلسفة دي أفلاطون أو حديث مودرن بلاتونيزم أو وحي كبدلوي أوكي فكرة اسمها توصل نقلي إلهي مركب عصانا نسأله مقالة محيدي إلهي وقرآن كشيء محيدي يضاهئون قول الذين كفروا وحي الشبه يعني قول كوي كهري وتثليث كل واقعي ونحن فهم إذا التثليث كو إنسان نصارى وإسا بالعمل وكهري أفلاطونية حديث كأبا تثليث كما قرآن مثلا يديمي قرآن سوى الشيء جديد مركب بولس وكتا أثري أفلاطونية حديث كتا أثري أيضا تثليث كسو نقلي مركب تعديل يرى الشكل ده oo korka kora bas buu sameeyay oo midalan ba meeshii ahayd al-munshi al-azali muxuu ka dhigay Allah ka dhigay Allah meesh aqliga ahayd oo al-aql an-nashi 'an al-munshi al-awwal aqliga ka dhashay munshi awwalka booskeedu wuxuu ka dhigay maxay al-ibn oo yuusa meeshii ahayd ruuxul kulli wuxuu ka dhigay ruuxul qudus buu ka dhigay
marka falsafadii yoonam ninka la oran jiray aflaatooniya alxadiida ayuu toos usoo naqliyay way tasliiska ahayd markaas wuxuu kusoo daray maxay diinta masiixa marka akbar shakhsi mukharrib wa muharrif fi diin almasiixiya wuxuu ahaa ninka Paulus ayuu ama Paul ama Saint Paul ingiriisku ay dhahaan kadib inta kale kuma joogsanin fikradda tasliis buu soo galiyay kuma joogsanin fikradda dan wuxuu soo naqliyay ahayd qurbaanka in ilaahay qurbaan lagu dhawaado qofka hadduu dambi galo waa in qurbaan la yimaado iyo fikradda isku qofraan iyo fikradda ah in ilaahay ninkan waxa weeye rajulkan diiniga ah ma asqafu inuu ilaahay qofka u dhaxeeyo ilaahay ana idin dhaxeeya wakaasama saan doonaan ka yeeliyad saan doonaan ka ciidan doonaan diinta ka saaraya ciidan doonaan bay soo galnay xataa waxa lagu leeyahay diinta xataa iimaanka ciiday qaadanaysa ciidan qaadanaya ayaa go'aaminay iimaanka ciidan qaadanaysa ciidan qaadanaya ayaa go'aaminay yani qofku markuu dambi galo kale lacag ba laga qaaday inta doonaan bay ku xirayeen waxay dhahaan inta aan bixin dambiga lama dhaafay okay kadib haddana ninka Yuusuf markuu intaas oo dhan ku soo daray diinta masiixiga ayaa kaniisaduna ayaduna wax badan ayaduna shaqada sii dhamaystirtay oo kaniisaduna ayaduna waxay keentay khashab markaas qori markaas ay leeyihiin Ilaahay Ciise ay leeyihiin bay keeneen marka ayada qorigaas ay keeneen marka waxa dhahay Ilaahay Ciise hala caabudo marka fikradii kale oo ahayd suwartii iyo tamthiilaadka oo wathaniyada Roomaanka ay caabudi jireen ayay ku soo dareen hadana هم مسيحيين غير محمد كان يست مسيحي وفكرة ده عليك صوت عليه شو مرات مركز نتيجته وحا مركز الشيء دينتي مسيحي وقتنا الصحة هذه ماشي اللي كبحض مركز أنا صارت الدين خزع بلاد خرافات يبان وحل سوقية أوكي وعقل ابن آدم ثلاثة على مصر هو واحدة من المنطقة هين وعلى قلها هين تذكر شيء وحيالها على يابك روح كم يعني تذكر شيء markay lahaayeen Allah al-Ibn wa Ruuh al-Qudus yani Allah waa ko al-Ibn waa labo Ruuh al-Qudusna waa saddex marka waxa dhan waa hal lagu daray hal oo lagu daray hal oo la mid ah hal waxa soo soconaya hal hadii lagu daro waa labo halka hadii lagu daro waa saddex Soomaa ay waxay ku leeyihiin hal oo lagu daray hal oo lagu daray oo hal la mid ah yani waa saddex hadana hal ah waa saddex hal ah bay ku leeyihiin marka falsafadaas dadku way koorimaadeen falsafada dhan baa ku in kartaa waxa soo soconaya ma مقرأت قف كسر كوري ماذا وحيد هاي وحيد كل جوابين ردي جود وحوها ردي جود بدنا نحصون ونروحوها أن ذلك السر لا يستطيع عقل إدراكه هل أنت سوى سر وعقله جاري كريم هل أنت سوى سر وعقله جاري كريم فقد هو وين راح كم لها القديس أغسطين واللاهوت كرجع ماشى سلك الجاروي لاهوت هو علم عن إله ذاتي وحصل تحليله وعلم الألوهية علم الألوهية marka meeshan de islaamka de culumtan kala aqeedada iyo cilmi kalaamka ay u joogan ay mas'aladna u joogto marka qadiis Augustine raga marka cilmi laahudka wax badan ka qoray ayuu ah wada cilmiga laahudka beenta oo la leeyahay ilaahay iyo magiciisa isku mid marka wuxuu oranayay hadalkiisa waxa kamid ah ninkaas wuxuu joogay qarni wuxuu joogay 430 miilaad ciise 430 laga joogay xiligaas ayuu joogay كان يقول حامدها أن كل ما جاء في الأناجيل لا ينبغي للعقل أن يجادل فيه يعني وحكى الأناجيل كويمد عقل يمرنا معقول ما إنك ضاله صواب لأن سلطانها أقوى من كل سلطان أمر به العقل البشري معناها أود أناجيل وإسكال هاي أيها كسر رئيسة عقل يا بني آدم كسر رئيسة ما صادرت عقل يا بني آدم سؤال بك من كذا ضد كل هل وضع هل وصدح واحد أنا هلا لا قدر معك هذا كنتنا مجنون باطل مبتدع وعطاي وقالوا وحق الله كم إذا رجع وصرية وحق اللاهوت كان أما حلوة قناة طولة واحدها نكال الأوريجين القديس توما أكويني بكم إذا نكال مدرسة نروح حسكال الأوريجين التومانية خصاصة الأوريجين نكال وحوها ودن بينك وحوها كل لباب بقول تضوات اللي أفرت أيوه وحوها سنة مدها أن الحقائق التي يقدمها الإيمان لا يقوي العقل على التدليل عليها يعني حقائق الإيمان كأسوق الدنيا عقل ومرنا دليل إمرئيسي يعني لا أول مالها مكان وحوي إنه تدليل أما الدليل صار معناها في النهاية ذلك خرافات بلا داعي بين بلا داعي
diin mushakal oo isku dhex darsan oo diimihii aan soo sheegno dhana lixda diimood ee ka badan oo la isku dhex daray baa waxaa loo dhigay inta diinta nabi ilaahi ciise taasna marka waxay keentay caqligii bini aadanka iyo dadka cuqaasha ahaa iyo diintii waxay ku sheegayeen diinta inay isku hor yimaadaan yani qofka looma ogolo inuu fakero يعني لو ما قال قف كي إلهي بحاول حي يعني كان ودات كان أول حي كان صدام قف صوت ونكية ليه يعني دم بها دوق العقل العليا تصل علينا بس بدم كامل عافية إيمان كوحة قربية إن قف كان إيمان يشوف إنه مؤمن نقول مسلم نقول إن كان شيخنا قربي وإن قربان لو كان إن كاس ودات كمان مركز قربان لو كان سيدات وحوي يبد بدن آخر بدن الدنيا ما أنا الله شقي سنين الدنيا الأوان يد على سارة وكلية هدف آخر بس وياه dadku marka inay gacan ugu dhintaan marka waa arrin ka soo horjeeda horumar ka soo horjeeda waa arrin ka soo horjeeda culumtii cilmigii ka soo horjeeda way waa arrin ka soo horjeeda yani aqliga ka soo wax kasta ka soo horjeeda noloshii oo dhan bay marka waxay ka dhigeen dheeri ka dhigeen taasna marka waxay keentay in infijaar u dhaco oo marka waxa weeye ay marka ay timaado cilmiga timaado insha Allah ta'ala intaas aan ku joojinayna taariikhdii cilmiga ku hor xaaladdu sahay إن أنا نودي من حلقات قدام بيت بنقول لما سرنا وحن رجينا إن شاء الله تعالى بدنا نتكفانتي وحكينا المريض يعني مقاس عوي اعتماده أنت قال دي بقى لما سرنا إن شاء الله دول هيد كذب وحن نقول قلنا الشيء دونا هو كمركز شرعي جاه دين تايك قرط مركز الشيء هنا اللي أنا هروح الشيء محمد الحكم على الشيء فرع عن تصوير مركز إن شاء الله تعالى تصوير قوي تاسن كوجوجنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته